Istaraatiijiyadda qarsoon ee HIV. Sida uu jirka ugu dhuunto muddo 10 sano ah, HIV waa fayras si xeel dheer ugu dhuunta jirka bini'aadamka, isagoo ku jira xaalad qarsoon latent, taasoo ka dhigaysa mid adag in si buuxda loo tirtiro. Haddii aad rabto warbixintan oo kale, fadlan guji subscribe si aad u hesho warbixina intaan ka badan. Ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Xaaladda qarsoon. HIV wuxuu isku dhex daraa dnaga unugyada martida host cells, isagoo noqda provirus, fayras aan firfircoonayn oo ku dhex jira hidde-sidayaasha unugga. Daaweynta ma joojiso fayraska qarsoon. Daawooyinka antiretroviralka waxay hoos u dhigaan tirada fayraska, waxayna joojiyaan faafidda cudurka, laakiin ma bartilmaameedsadaan fayraska qarsoon. Tani waxay sababtaa in bukaanku u baahnaadaan daaweyn joogto ah si aysan fayrasku dib ugu soo kirin. Meelaha uu HIV-ku dhuunto. HIV wuxuu ku dhuuntaa unugyo kala duwan oo jirka ah: unugyada T-helper ee nidaamka difaaca, unugyada maqaarka, unugyada dhiigga cad, iyo unugyo gaar ah sida bodocyteska kilyaha iyo unugyada taageera neerfaha, qaybo ka mid ah maskaxda, kilyaha, beerka, sambabada, iyo mindhicirka. Sida uu HIV u qariyo naftiisa, HIV ma isku dhex daro dnaga si aan kala sooc lahayn. Wuxuu raacaa qaab gaar ah oo ku salaysan deegaanka unugga iyo jawaabta difaaca jirka. Tusaale, maskaxda. Fayrasku wuxuu iska ilaaliyaa qaybaha firfircoon ee dnaga, wuxuuna ku dhuuntaa meelaha aan firfircoonayn. Daraasadda cusub. Cilmi baarayaashu waxay falanqeeyeen muunado unugyo laga helay dhiigga, caloosha, hunguriga, mindhicirka yar, iyo maskaxda. Waxay ogaadeen qaababka HIV uu ugu dhex milmo hidde-sidayaasha unugyada kala duwan ee jirka. Tani waxay fure u tahay in la helo daaweyn bartilmaameedsata unugyada fayrasku ku dhuunto, ama si toos ah loo tirtiro ama loo aamusiyo fayraska. Qiimaha muunadaha taariikhiga ah. Muunadahan waxaa laga helay bukaano ka qayb qaatay cilmi baaris xilligii hore ee faafitaanka HIV/AIDS, ka hor intaan daaweynta casriga ah la helin. Tani waxay muujinaysaa sida ay u muhiim tahay kaydinta muunadaha taariikhiga ah si loo fahmo fayraska si qoto dheer. Cilmi baaristan waxaa lagu daabacay joornaalka Communications Medicine.